bal qiyaas saaxiib adigoo iska fadhiya oo noloshaada iska wadata kadibna si lama filaan ah loo ogaado in dunidu dhammaanayso. Dhammaan sanadihii aad noolayd wax walba waxay u dhaceen sababta oo ah dhakhtar yaab leh oo la oran jiray Skinner. Ninkan waxaa caalamka oo dhan looga aqoonsanaa inuu yahay qofka ugu caqliga badan dunida marka laga reebo Einstein, sababtuna waxay ahayd inuu sameeyey dawo xanuun baabi'iye ah oo tirtiri karta nooc kasta oo xanuun ah. Markii hore dadku waxay u haysteen inay tahay daroogo jaban oo si qarsoodi ah loo sameeyey, balse haddana qof walba wuu iibsaday sidii casiir loo cabayo. Dadku muddo dheer ayay qaadanayeen dawadaas, xanuunna ma dareemayn. Waxay siinaysay awood iyo tamar badan, qofkana wuxuu dareemayay inuu ku nool yahay riyo. Dawadii waxay ku faaftay dunida oo dhan, waxayna baabiisay waxa loo bixiyey xanuunka ugu dambeeya. Laakiin 3 sano kadib, Skinner si lama filaan ah ayuu u baaba'ay. Dadku si buuxda ayay ugu dhaceen shirqoolkiisa, iyagoo aan ogeyn inuu diyaarinayay musiibo gilgili doonta caalamka oo dhan. Ka hor intaan wax kala dhicin, bal arrintan aan eegno. Halkan waxaan ku aragnaa geesigeenna Axel oo xabsi ku jira si adag loo ilaaliyo, isagoo tababar ku jira. Wuxuu helaa booqasho farxad gelisa. Ugu dambayn qof ayaa u yimid, haweeney la yiraahdo Harish, indho fiiqan leh, kana muuqato inay wax qarinayso. Axel wuxuu ku yiraahdaa, ma ku aaminayo Marwo. Qof kasta oo adiga oo kale ah oo aan la kulmay wuxuu noqday qareen ama dilaa. Iyaduna waxay ku jawaabtaa, haa, labadaba waan ahay, macaane. Waxaa markiiba la fahmayaa inay u timid arrin gaar ah. Waxay u sheegtaa inay ka caawin karto inuu xabsiga ka baxo haddii uu ogolaado dalabkeeda. Axel aad buu ula yaabaa, yaa ay tahay haweeneydan, sideese suurtagal u tahay inay isaga xabsiga ka saarto. Runtu waxay tahay Harish waxay ka taqaanay wax walba oo isaga ku saabsan, xitaa cabbirka kabihiisa. Waxay u timid hawl gaar ah, iyadoo hubta inuu si heer sare ah u fulin karo. Waxay tusaysaa muuqaal dunida oo dhan qabsaday. Skinner ayaa mar labaad soo muuqda, balse run ahaantii way ka fiicnaan lahayd inuusan marnaba soo bixin. Wuxuu dadka ku leeyahay, haddii aad ku faraxsan tihiin inaad noolaataan adigoon wax dareen ah lahayn, taas micnaheedu waa inaad dhimasho la mid ah ku jirtaan. Isagoo sii wata wuxuu dadka u sheegayaa in dawadii ay qaadanayeen ay ahayd mid jirka ku sii jiri doonta xitaa 3 sano kadib, isla markaana qof kasta oo qaatay uu wajihi doono dhammaad aad u dhow. Wuxuu sheegayaa in 30 maalmood oo keliya ay ka harsan yihiin dhammaadka aadanaha. Hadafkiisu wuxuu ahaa inuu nadiifiyo bini'aadamka oo uu bilaabo waqti cusub. Markii booqashadii dhammaatay, Axel wuu istaagay, wuxuuna Harish ku yidhi, haddii aad runtii i taqaanid waa inaad ogaataa hal shay. Isagoo hadalka sii wada wuxuu muujiyey dabeecaddiisa dhabta ah. Axel waa nin aan marnaba ku nagaan karin xabsi. Meel kasta oo lagu xiro wuu ka baxsadaa, taasina waa dabeecaddiisa. Wuxuu qabsaday hubkiisa, kadibna si lama filaan ah ayuu u cararay, isagoo u boodaya, u rogmanaya, una dhaqaaqaya sida qof ku jira bandhig masraxeed. Wuxuu muujiyey awood iyo dabacsanaan aan caadi ahayn. Boolisna ma joojin karin, xitaa rasaasna kama cabsi qabin. Wuxuu u ekaa shimbir ka baxsanaysa qafiskii lagu hayay. Harish meel fog ayay ka daawanaysay, iyada oo hubta in ninkan uu yahay qofka ay dunidu raadinaysay. Dhanka kale, Douglas iyo saaxiibkiis ayaa u dhaqaaqay si ay u soo qabtaan. Kadib muuqaalka Skinner ee dunida qabsaday, qalalaase weyn ayaa bilowday. Dadku way isku dhaceen, qaarna way ooyayeen, qaar kalena way qaylinayeen, wuxuu noqday fowdo buuxda. Axel wuxuu si degan ugu socday waddada, markaas ayuu arkay askari, wuxuuna ku yidhi, maxaad sida maxbuus u labisan tahay? Sida caadada u ah, Axel si sahlan ayuu arrinta uga baxsaday, isagoo ku andacooday inuu ku jiray riwaayad. Askari yar kadib wuu sii daayay. Axel wuxuu galay dukaan, dharkiisana wuu bedelay, kadibna tareen ayuu raacay si uu meel fog uga baxo. Isla waqtigaas, Harish waxay la murmaysay madaxdeeda. Waxaa lagu wargeliyey inay si degdeg ah u dhaqaaqaan ka hor inta uusan qof kale la xiriirin Skinner oo uu ka baxsan. Haddii ay taasi dhacdo, gebi ahaanba xiriirkii lagu gaari lahaa Skinner wuu goy lahaa. Markii Axel gaaray saldhig tareen, kamaradaha ammaanku way aqoonsadeen. Wejigiisa ayaa ka soo muuqday shaashadaha oo dhan. Qof kale wuu argagixi lahaa, balse Axel wuxuu dareemay in ciyaar cusub ay hadda bilaabatay. Wuu cararay isagoo ka baxsanaya ammaanka sidii ciyaar uu ku jiro. Dhawaaqa iyo dhaqdhaqaaqa ayaa gaadhay kooxda, waxaana si dhow ula socday Birsa oo si dhaqso ah u falanqaynaysay tallaabo kasta oo uu qaadayo. Kooxdu waxay isu diyaarisay inay si gaar ah u soo dhaweeyaan. Axel mar walba wuxuu isku dayay inuu baxsado sidii qof meel gaar ah u socday. Diyaarado yar ayaa isku dayay inay joojiyaan, balse isaga dan kama gelin. Wuxuu u boodayay bidix iyo midig, halka kooxduna ay dadaal ugu jirtay inay dabin u dhigaan. Markii Kirist ogolaansho ka heshay Doug, waxay bilowday inay rasaas ku rido. Doug wuxuu ku yidhi, sii wad, balse isku day inaadan waxyeelayn dad aan waxba galabsan markan. Ugu dambayn waxay ku hareereeyeen Axel meel dad badan joogaan. Douglas meel fog ayuu ka daawanayay. Axel wuxuu ku dhawaaqay, ugu yaraan ma ku heshiin karnaa Barbaro? Waxaan rabaa inaan arko qofka i dilaya. Doug wuu diiday. Axel wuxuu ku qoslay oo ku yidhi, hagaag, haddaba ku qor qabriga, waa la dilay. Isagoo hadalka sii xumeeyey ayuu raaciyey, waxaa dilay Douglas, ninkii gadaal iga toogtay. Douglas wuxuu ku jawaabay, waddo kale ma lihid saaxiib. Dadku ma duuli karaan mise way duuli karaan? Maanta xal walba waa la helay. Axel iyo kooxda ayaa si kalsooni leh u booday, iyagoo xakameeyey Dronikii. Kiris ayaa yara fakartay, kadibna u soo dhawaatay Axel iyadoo ku tiirsan xirfadeeda gaarka ah. Waxay ka codsatay sawir. Axel wuu ogolaaday, balse taas ayaa noqotay dabin. Gacanteeda ayay ruxday, wuxuuna helay show koronto. Khiyaanoole ayuu ku qayliyey Axel. Ugu dambayn way xakameeyeen, waxayna ula kaxeeyeen xeradooda. Markii uu soo toosay, waxay u sheegeen inay yihiin kooxda Lazarus, isla markaana laga bilaabo maanta uu xubin ka yahay.
gacanta waxaa looga xiray katiinad bir ah si loo fahamsiiyo inuusan si fudud uga bixi karin. meel kasta oo uu tago waa lala socon doonaa sida xubnaha kale oo dhan. Harish waxay u sheegtay in iyada iyo kooxdeeda lagu amray inay helaan Skinner qiimo kasta ha ku kacdee ka hor inta uusan bini'aadamka dhammaystirin. Waxay ku tiri, haddii aad rabto inaad weli dembiile iska ahaato waa hagaag, waan kugu celinayaa xabsi. Ama nala shaqee, naga caawi helidda Skinner, kadibna waan ku sii daynaynaa. Axel mar dambe kama cabsan hanjabaadeeda. Wuxuu qabsaday hubkiisa isagoo leh, katiinadan waxba igama qabato, Marwo. Laakiin si lama filaan ah, katiinada ayaa shoog siisay. Harish waxay ku tiri, haddii aad isku daydo inaad baxsato korontadu waxay gacantaada ka dhigi kartaa casiir cambaha la mid ah. Kooxdu way kala durkeen si ay uga wada hadlaan waxa ay samayn doonaan marka ay helaan Skinner. Qof walba wuxuu ka fikirayay danihiisa gaarka ah. Halkii ay ka dili lahaayeen waxay doonayeen inay ka faa'iidaystaan sida uu iyaga hore ugu adeegsaday si ay u helaan talaalka daawada. Laakiin Douglas ayaa hadalka qaatay isagoo leh, kaalay aynu dhaqaaqno. Dunida ayaan badbaadinaynaa, geesiyaal ayaan noqonaynaa. Farha. Wuxuu Axel u sheegay inuusan markii hore ku qanacsanayn ku daristiisa kooxda. Wuxuu u arkayay xayawaan duurjoog ah oo boodboodaya, uuna u malaynayay inuusan wax faa'iido ah lahayn. Si kastaba ha ahaatee, Axel wuxuu bilaabay inuu ururiyo dhammaan macluumaadka ku saabsan Skinner si uu ula wadaago kooxda. Skinner waa 58 jir. Wuxuu ku dhashay Istanbul isagoo aan lahayn waalid, hooyo iyo aabe midna. Carruurnimadiisu waxay ahayd mid adag, cidna dan kama gelin. Wuxuu godoon ka ahaa xididadiisa, taasina waxay sababtay in guulihiisu si degdeg ah u bilaabmaan. Wuxuu noqday maskaxdii ugu weynayd dunida, wuxuuna ku guulaystay abaalmarinta Nobel 3 jeer. Harish waxay wajahday shir jarayd oo uu Skinner ka hadlayay isagoo dadka u sheegay in 3 sano gudahood barafka cirifka waqooyi gebi ahaanba dhalaali doono, taasoo bilaabi doonta masiibooyin istaba joog ah oo ugu dambayn keeni doona dhammaadka dunida. Leland wuxuu yidhi, ninkan wuxuu u muuqdaa mid qalbi wanaagsan, ma aha qof dagaal jecel. Wuxuu qabtay shaqo samafal oo badan. Waa inay jirtaa sabab ka dambaysa hanjabaadiisa. Kooxdu way kala baxday iyagoo dhaqso u dhaqaaqaya maadaama la ogaaday in Skinner wax iibsi sameeyey. Waxay heleen meel qarsoodi ah oo 8 sano ka hor la isticmaalayay, taasoo muujinaysay in ninkan uusan si fudud u baxsan. Intii ay baarayeen, Kirist ayaa Axel weydiisay sababta loo xiray. Wuxuu ugu jawaabay, waxaa la igu xukumay 808 sano. Way naxday, gaarigii ayay joojisay, xitaa waxay ku fikirtay inay iska tuurto iyadoo u malaynaysa inuu yahay dilaal weyn. Axel ayaa u sharaxay in markii hore lagu xukumay 3 sano oo keliya, balse xukunka ayaa labanlaabmi jiray mar kasta oo uu isku dayo inuu baxsado ilaa uu gaadhay tiradaas waalida ah. Dhanka kale, Douglas wuxuu Leland uga warramayay dembiga Axel, intii ay wada hadleenna wuxuu xusay magac la yidhaahdo Allen. Inkasta oo Kirist ay muuqaal ahaan degan tahay, haddana iyadu waa kaarka qarsoon ee kooxda, qofka mar walba keena kooxda meesha saxda ah. Meeshii ay gaareen waxay u ekayd burbur, lama garan karin inay ahayd hoy ama xabsi hore. Dhismaha oo dhan wuxuu ahaa burbur. Douglas wuxuu helay qalab weli shaqaynaya, taasoo caddayn u ahayd in qof dhowaan joogay halkaas. Iyagoo raad raacaya, habeenkii waxaa dhacay dhaqdhaqaaq shaki leh. Isla waqtigaas, Axel iyo Kirist waxay heleen nin waayeel ah oo kursi ku fadhiya, lama hubin inuu nool yahay ama dhintay. Si kedis ah ayaa rasaas xooggan loo furay. Axel wuu ku farxay dhawaaqa, isagoo Kirist u sheegay in silsiladda uu wato ay ilaalinayso, isla markaana uusan dhimanayn hadda. Wuxuu hore u baxay isagoo rasaas ku furaya cadowga, una dhaqmaya sidii qof ku ciyaaraya hees rab ah, waxba dan kama gelin, wuxuu u dhaqmayay si uu hubay inuusan dhimanayn. Mid ayuu u ridayay cadowga. Halkaas ayay Kirist ku ogaatay in maskax ahaan uusan caadi ahayn. Waxay u sheegtay inaysan halkaas u joogin ciyaar, mudnaantooduna tahay helidda Skinner. Markii Axel u dhowaa inuu gaaro Skinner, ayuu arkay ciidamo ku hareeraysan dhammaan jihooyinka. Waxaa lagu amray in dhammaan hubka la dhigo. Hay'adda ka hortagga daroogada ayaa goobta la wareegtay. Axel isagoo xaaladda fahmay ayaa ku dhawaaqay, haye markaa hubka dhig. Annagu waxaan nahay Lazarus. Dadku waxay u maleeyeen inuu waalan yahay. Ma aysan ogeyn in magaca Lazarus uu ahaa keliya marin habaabin si waqti loo helo. Markii nalalka la shiday, waxaa la ogaaday in ninka la qabtay uu yahay qof baxsad ah oo sabool ah, dayn badana saaran tahay darooga darteed. Kadibna xaqiiqadii ugu yaabka badnayd ayaa soo baxday, dunida oo dhan waxaa ku nool hal eber qof oo wejigooda si buuxda ugu eg Skinner. Arrintaas ayaa qof walba ka yaabisay. Douglas wuxuu markiiba fahmay in arrintu aad uga weyn tahay hal nin. Skinner meel walba ayuu ka muuqday, 100,000 oo qof oo dunida ku kala sugan ayaa wejigooda la mid ahaa. Taasi waxay ka dhigtay in aan cidina si dhab ah u ogaan karin halka uu joogo. Waxaa la xaqiijiyey in nidaamyadii kormeerka dunida la jabsaday, wejiyada dad caadi ahna lagu bedelay wejiga Skinner si aan marnaba loo helin. Waxaa la yidhi dunida waxaa jooga 3 hacker oo keliya oo awood u leh farsamadan, balse hubaal waxaa jiray mid afraad oo ka sii halis badan. Si kastaba ha ahaatee, hal shay ayay ku hubnaayeen, Skinner wuu noolaa. Fikraddii ahayd inuu samaystay qalliin wejiga lagu bedelo way burburtay, sababtoo ah qof isaga oo kale ah ma dooran lahaa inuu iskariyo sidaas haddii uu qalliin samaysan lahaa. Shaqooyinka ayaa la kala qaybiyey. Billy Berg ayaa amray in Kirist iyo Leland ay aadaan gurigii hore ee Skinner, halka Douglas iyo Axel ay u jihaystaan naadi. Douglas wuxuu ka mid ahaa dadka ugu muhiimsan ee ka caawiyey Skinner cilmi baaristiisa hore. Markii ay galeen isbitaal ay ka buuxaan bukaan, waxaa caddaatay in dadka joojiyey qaadashada dawada ay si xun u xanuunsanayeen sidii ciqaab loo marinayo. Douglas ma helin wax raad ah oo Skinner ah, dhammaan xogtiisiina waa la tirtiray. Dhanka kale, Leland iyo Kirist waxay si khiyaano ah u jabiyeen ammaanka guriga Skinner. Kirist ayaa ku tiri,
adigu waad khiyaano badan tahay. Isna wuxuu ku qoslay. Adiguna xatooyo waad taqaanay, wax cusub maaha. Waxay wada qirteen in labadooduba ay dambiyo hore galeen. Kiris waxay qiratay inay ahayd basaasad dunida ku wareegtay oo ugu dambayn la qabtay. Intii ay guriga baarayeen waxay heleen galoof shaki leh. Kiris waxay u malaysay inuu yahay qalab daaweyn ah oo Skinner ka hadlayay, balse iyada oo aan wax badan ka fiirsan ayay jeebka gelisay. Dhanka Axel wuxuu ku wareegayay xaafadda isagoo raadinaya nin la yiraahdo Jerry Maylo. Ugu dambayn wuxuu ka helay isagoo isu ekaysiinaya gabar. Markii ay wada fariisteen waxay u sheegeen inay raadinayaan nin la yiraahdo Claude. Jerry wuxuu ku adkaystay inuusan rabin inuu khiyaaneeyo dadka hoyga ku jira, qof walbana uu leeyahay sheeko u gaar ah. Douglas ayaa markaas uga warramay sheekadiisa sidii uu cilmi baare jaamacadeed u ahaa, cidna u caawin weyday marka laga reebo Claude. Markii Jerry taas maqlo wuu qancay, wuxuuna u sheegay halka laga heli karo. Markii Douglas la kulmay Claude, wuxuu ka helay xog muhiim ah. Skinner wuxuu ahaa nin degan oo caadi u muuqda, balse marka uu shaqo galo maalin iyo habeenba wuu shaqayn jiray isagoo aan daalin. Wuxuu xiriirkii u jaray saaxiibkii sabab masayr ah, taasina waxay ahayd bilowgii musiibadiisa. Waxaa kale oo la ogaaday in Skinner uu lahaa ayeeyada ah oo ku nool Istanbul, isla markaana uu aad u jeclaa. Sidaas darteed waxaa la rumaysan yahay inuu hadda la joogay. Kooxdu waxay ku noqotay xogtaas, balse si lama filaan ah wax raad ah loogama helin ayeeyada. Waxay u muuqatay mid si ula kac ah loo qariyay. Istanbul waxaa ka jira meelo ammaankoodu eber yahay, taasoo ka dhigaysa meel ku habboon inuu Skinner ku dhuunto. Sidaas ayay kooxda ugu safreen halkaas.